Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada daawadayaal warbixin iyo macluumaad ku saabsan meeraha Mercury. Mercury dusaa meeraha ugu dhow dhanka qorraxda. Mercury waa meeraha koowaad ee meerayaasha kaasoo ugu dhow dhanka qorraxda. Wuxuuna qorraxda u jiraa masaafo dhan 58 milyan oo kiiloomitir. Dhanka kale, masaafada u dhaxaysa dhulka iyo meeraha Mercury waa 77 milyan oo kiiloomitir. Haddii aad tagto meeraha Mercury, dhulku wuxuu u muuqan doonaa sidan oo kale, qaab u eg xidig yar oo aad u fog. Meesha sidan ah waa dhulkii aad ka imaatay. Waa haddii aad ka soo eegto dusha sare ee meeraha Mercury. Meerahan Mercury waa meere aad u kulul maadaama uu u dhow yahay qorraxda. Kulaylka dusha sare ee meeraha Mercury waxa uu gaaraa 170 digrii Celsius, bal qiyaas kulayl ka badan 170 digrii. Tusaale ahaan, haddii aan fiirino dhulka aynu ku noolnahay, meelaha ugu kulul ee la dhaho waddan hebel ama magaalo hebel waa magaalada ugu kulul. Waxa uu heerkulkeedu gaaraa ilaa 60 digrii. Laakiin siday noqon lahayd nolosha meel heerkulkeedu ka badan yahay 170 digrii dusha sare ee Mercury? Meeraha Mercury waa mid la arki karo xilliyada qaar, waa beriga hore ee subaxdii iyo sidoo kale xilliga maqribka, isagoo u muuqda xidig aad u yar. Balse ma ahan meeraha kale ee waxara xirka ama Venus, kaasoo muuqaal ahaan ka weyn Mercury, lagana arko sidoo kale dhanka galbeed ama qorrax soo baxa. Meeraha Mercury waa meeraha ugu yar xajmi ahaan dhammaan meerayaasha 8 ah. Marmarka qaar waxaa teleskoobyada lagu sawiraa isagoo ka gudbaya meel cabir ahaan ku aadan inta u dhaxaysa dhulka iyo qorraxda. Wuxuuna u muuqdaa mid aad u yar oo loo malaynayo dhibic yar oo ku dhex taalla qorraxda. Sidaas oo ay tahana, haddana meeraha Mercury ma ahan mid yar sida u muuqdo marka laga fiiriyo dhulka. Wuxuuna cabir ahaan la eg yahay qiyaastii dhulka ay ku fadhiso badweynta Atlantiga. Xilliyada ka jira meeraha Mercury waa mid ka duwan xilliyada aan ku naqaano dhulka. Maalinkiisu waxay la eg tahay 176 maalin oo maalmaha dhulka ah, taasoo u dhiganta 6 bilood oo dhulka ah inay tahay hal maalin marka la joogo meeraha Mercury. Bal qiyaas 6 bilood oo aan qorraxdu dhacaynin hal marna, iyo sidoo kale 6 bilood oo aan qorraxdu soo baxaynin ama habeen ah. Nolosha sida ayay noqon lahayd. Laakiin halkii sano ee meeraha Mercury waa 88 maalin, halka sanadka dhulku yahay ilaa 365 maalmood. Marka lagu dhahayo sanad, waxay ka dhigan tahay inta maalin oo ay meeraha ku qaadanayso inuu ku soo wareego qorraxda. Taas ayaana keenaysa in meeraha Mercury uu ka sanad yar yahay dhulka, maadaama uu uga dhow yahay qorraxda marka la eego dhulka aynu ku noolnahay. Dusha sare ee meeraha Mercury waa mid qallalan, sidoo kalena ay ku yaalaan godad waaweyn. Halkan kama jirto wax nolol ah, sababtoo ah halkan lagama heli karo biyo iyo hawo oksijiin ah, taas oo aasaas u ah nolosha bini'aadamka iyo xayawaanaadka kale. Muuqaalka oogadiisa sare waxa uu eg yahay kan dayaxa dhulka ee aan ku soo sheegnay muuqaalkii hore. Wuxuuna leeyahay jir adag oo ka samaysan curiyaasha kala ah sodium, hydrogen, helium iyo potassium. Waa mid qallalan, sidoo kalena aan lahayn atmosfeerka difaaca fallaaraha iyo shucaaca sunta ee qorraxda. Markii ugu horreysay taariikhda, dayax gacmeedkii ugu horreeyay
ee laga leeyahay waddanka Mareykanka ayaa tegay dusha meeraha Mercury, waxaana ka soo qaaday macluumaad iyo xogo muhiim ah. sidoo kale waxaa jiray 2004 dayax-gacmeed oo Mareykanku u diray meeraha Mercury, kaasoo ka keenay macluumaad badan iyo sawirro badan oo faahfaahsan. balse ugu dambeyn 2015 dayax-gacmeedka ayaa ku burburay dusha sare ee meeraha Mercury kulaylka daran awgeed, waxa uuna noqday mid shiilmay sida caagada oo kale. waxa shiilmay waa dayax-gacmeed ka samaysan bir iyo qalab adag. laakiin ka waran xaalku sidoo noqon lahaa haddii uu tagi lahaa qof bini'aadam ah? ilaa hadda ma jiro qof tegay meerahan Mercury marka laga reebo dayax-gacmeedyo keligood ah oo aan cidna saarnayn. sababtuna waxay tahay kulaylka jahannamiga ah ee ka jira dusha sare ee meeraha Mercury.